عليكم ورحمة الله وبركاته. سودو هذا أخيار تاي أوفيشال ملك استجبتان عادي أدبني سودويني ولكن كمال سودو هذا تيم كيجا يعني ما تيدين واضح مستر حمسي هذه أدبن مع سودو كمالو أنا أصحاب تاي دمان تيم بيد الآن تيم ملك استجبتان بوحين اللي يحلك استجدين تاي هو ناقصن إن كمالو ما تحنا وده ما أنتوا حندين وضح أديك أصحاب تبا ninkii baabajey ahaa iyo inantii inan lama oran kare kuween qaawan oo muxuu ahay baabajey fikradu la yimi imika cusub oo uu ku wareysanayo kuween qaawan oo de maaragtay dhaqankeeda iyo muxuu ahaayay asluubteeda iyo waxay de tahay ka shaqeysato la wada garanayo la wada garan og yahay ayay ka dhigayaa ninkii odaga baabajey inuu maaragtay gabar sharaf la ay tahay waan fahmay marka asxaabta qaabku u wareysanayo iyo qaabku ula hadlayo iyo qaabku uga falcelinayo iyo kuwan qaabka dadka ugu soo bandhigayso nala daawada nala arka watan waxaan naga sii cararina channelka subscribe noo saara like tuwa dhiirigelin commentiguna waa fikrad wixii cusub aad rabtaan inaanu ka soo jawaabin ama aanu ka soo hadlo noogu soo qora haye no problem dadka waxay ka aaminsan yihiin adiga inaad ka ganacsato jirkaaga amaba hoteelada aad ugu tagto ragga si aad lacag ugu soo qaadato maxaa ka jira salaamu alaykum wa rahmatullahi waan jeclaystay in aan ku weydiiyo way adag tahay in adiga qof contactigaaga oo helo oo kula soo xiriiro maxaa yeelay adiga agagaarkaaga ay joogan security aad u fara badan si fiican ku ilaalinayo saastaan waa ka soo dhaxbaxay adigana si toos ku helay haddaba su'aasha koowaad u diyaar garow okay سؤالك واضح إلى هذا هاي قاون ما حد كنت المام لهاد سأشوا كهلا قاون ما حدكم معناه لهاد اوكي قاون وناك فريدة قاون وناك ارتلاء قاون وناك مسكح بدن قاون وناك عقل جيد حابة يدي بس يا مانيسا waxay isku amaanaysaa inay tahay gabar kartile oo wax garada ay ku saxan tahay inay isqaawiso iyadoo qaawan meelahaas soo duubto oo iyadoo qaawan ay Soomaalida wax cusub casharo cusub oo hadda Soomaalida ku cusub ay u soo bandhigto hey markaan yar baan ka oranaya inta horta marka la leeyahay qof imka haduu ku dhaho waayo qofkani waxa la ransaatay qofkani waa qof fiican wuxuu yahay baad sheegaysaa laakiin qaabka uu baabajey kuri waayo kun qaawan waxa leedahay kun qaawan waa gabar fariida gabar kartila gabar maskax badan haday fariid tahay carruur bay dhashay dhaqankeeda may bedesheen haday maskax leedahay qaabkan aalimka arkayno may tiraahdeen marka bal waxa kale uu sii weydiina wadna arki doontaan la yaabuu dambeeyay dhowr waxoo kaliya ta kelmada ayaan dul istaagi doonaa committee loo soo qoray baabajey ee falcelintaana waa idin tusi doonaa Soomaalidiina waxay ay ka fahansiinayaan dadkeena Soomaaliyeed iyo fikirkeena Soomaaliyeed inta ugu badan mujtamac waxa laga fahansiinayay inay gabar wanaagsan tahay wanaagna meesha ma yaalabadi wax wanaag la yiraahdo adigu wada maqlayso wada daawanayso wada arkaysa wax wanaag la yiraahdo meesha ku jira maya dhaqankeena ma diinteena ma aha intaba قاون وناكو هيلينيسا هدي غيري نقطه iyo haday labada nolol noqotaba waxay tiri kun qaawan waa gabadh ku heelinaysa labada daarood baaday noqoto garanay adduunkii qofkii waad ugu heelinaysaa oo qofkii maskiinka ahaa haduu dhibaataysan yahay waad ugu heelinaysaa laakiin aakhiro bal qaabkeed ugu heelinaysaa aakhiro adiga ba la yaabal meel aad tagto qofna qof ma caawinayo qof walba dambigiisa baa saaran marka bal aakhiro adiga dambi ku yaalay ilaahna waxaan ka baray inuu ku dambi dhaafay bal qaabkeed ku caawin doontaa su'aashaas waa su'aal ku socota kuwin qaawan aan halkan ka salaamayno sii wad bataasi to umsi guda galeen waxa rabaa inaan bas kaliyaata u sheego dadka OnlyFans waxa waaye meel oo aan lacag ka sameynaysid taas oo ah muuqaal kaliyaata oo ahayn wax la isla kulmaayo iyo wax la is arkaayo iyo wax la istaabanayo labada midna just waxa qof muxuu ahaayay ibn aadana oo jirkiisii iska soo duubay isagoo qaawan isticmaalaya caagag iyo wax la yaala la mid ah oo muxuu ahaayay oo daadu galma ah ma kula tahay
qof kale oo la kulmayo ama ay saarkeen inay deelayso waa maya waayo jidhkeeda waxay usoo bandhigaysaa waxa weeyaan nin ganacsi ay kaga samayso adduunyo ay ka raadiso waxaasoo kalena maaha diinteena muslimka ee suubanna maaha akhlaaqna maaha waxay ka hadlaysona maaragtay xamsow dee wax ay damiirku qaadanayo maaha maxaa qof jidhkeedii ay ka ganacsanayso weliba ku faraxsan eela waxaan waa easy anigu dad ma kulmayno laakiin si jidhkaygaan soo duubaya maxay kula tahay aniga horta waxay la tahay dee waxaa la yidhi kabiya xaarkeed waa la isla tuuraa haddii iminka lacala aad qaab caadiyaba aad u duubi lahayd iyo haddii aad sidan u duubtaba labadoodii horta adiga waa lagu arkayaa waa ta kale ee dee soomaalidu horta badankeenu ama soomaalidoo dhani haddii wax loo sheego waxa kama falceliyaano si toos ay u qaataan muuqaalkana waxaan usoo duubanaa waxay tahay in aan soomaalida u sheegno dhaqankan ay wado kuwin qaawan inuu yahay dhaqan khaldan oo iminka waxay sheegaysaa website-kan ay leedahay lacag baa laga sameeyaa dee laba shayinba horta isweydiin mudan marka aad lacag samaynayso lacagtan waxa aad ku bixinayso iyo qaabkaad kusoo qaadaysa lacagta waxay kusoo qaadaysaa qaab xaaraana oo jidhkeeda ay ka ganacsanayso waxa ay ku bixinaysaana waa wax xaaraana ummaddiina waxay u sheegaysaa waxaani inuu yahay wax saxsan oo aan wax saa usii badan bahayn markaa kusii dheeraamina kuwin qaawan waayo hadlo xun baa naga iman karaya markaa noo sii wad kamaalow saan kusoo sharaxay hadaaya ma ahan meel oo aad dadka inaad u tagto aad la soo kulmayso ood arkayso no aniga waxaan ahay OnlyFans girl macnaheeduna waxaa waaye weligayga inaa baxay oon hotel aaday nin inaa u tagay isoo taataabtay lacag ka soo qaatay ma jirto waa been waaye because OnlyFans waxa waaye waxay ku kooban tahay waa internetka ani hadda si ii fiiriso waxaaba ahayba cyber hall sharmutooyinka oo maxaa lahaa internetka sharmuto oo la waad maqlaysa xamsew waxay ku leedahay sharmutooyinka waxaan ka mid ahay internetka laakiin se anigu ma yihi sharmuuto la taataabto maxay ku kala duwan yihiin bal idinkaani weydiinayna waxay ku kala duwan yihiin sharmuutada internetka iyo sharmuutada dee galmooda caadiga commentiga nagula soo waxay ku kala duwan yihiin adiga fikirka iyo adiga maskaxda daawanayo bal su'aalo kale laba su'aalood oo kale ayaan ka dul istaagaynaa kuwin qaawan waxba kusii dheeraan mayno iyo committee bas committee baabajey loo soo qoray ay ka bixiyeen dadku intooda wanaagsan committee waxay ugu soo qoreen intooda xun waxay ugu soo qoreen wixii committee aada akhrin doona aan ku dayn doonaa marka labadaas su'aalood aan eegno haddaad dhahdo ma samayn karo ceeb maha mogtahay so cunugayga waa koriyey ilaa 4 sano intuu ahay aniga kangaroo ma ihi kangarooga waxaa loogu talagalay meel oo ay alaabta ku qaadato cilmaheeda ku qaadato inay haysato so ani waxaa diiday maaragtaa ninka ilmaha dhalayna inuu xaragoodo anigana aan cunugii keligay koriyo so cunuga ana aabihiisiyey mas-uuliyaddana ma qaadi karin ma dhihi karo laakiin waxaa ka baqay inaan noqon waayo hooyo perfect ah oo fiican oo cunugayga mutaystay so saas darteed ana cunugayga sii aabihiis kuwin qaawan halka waxay ka sheegtay oo aad maqlaysaan inay cunug dhashay cunugee dhashayna ay maaragtay mas-uuliyaddiisa qaadi karayn si ay dee hawlaheedan ugu kala socdaan beri ka maalin wiilkay dhashaa Soomaaliya iman karaa wuxuu iman karaa waxa la weydiiyey kala weydiiyey muxuu ahaaye beri ka maalin inankaagu adigu caqabad ma kugu iman karaa caqabad ahaan marka waxay tiri dee muxuu ahaay wax caqabado igu imanaya malaha waayo waddankan ku dhashay waddankan ku barbaaray ma fahmaysa marka halka nin yar baan ka odhanayaa inta yaraan ka odhanaya horta waxay tahay dee waxa la yidhi waxa uu faamilkaagu yahay unbaa tahay markan uu baabajay ku leeyahay waxaan maqalnay inaad cunug dhashay cunugiina aad aabihii siisay waxay ku jawaabaysaa cunugii anigu meehe xayawaankan kanguruga la dhahay caloosha ilmihiisa gashta waxaan arkay ninkii cunuga dhalay oo xaragoonaya markaa anna waan qaadi kari waayey kafaaladiisii aabihii baan ku wareejiyey halka hal shay baan ku odhanayaa dee weli lama arag hooyo tiraahda ninkii iga dhalay cunugan waxaan arkay xaragoonaya saasaan ilmihii ugu wareejiyey saacad walbana waxaad aragtaan iyadoo TikTok live ku jirta dee inta ay TikTok live ku jirto ilmaheeda eedhe waqti way siin karaysay wayna qaadi karaysay laakiin
qaabka iyad u samaysay iyo intaba waa brevetkeeda ma sii dhexgelin waxaana fiican qofka brevetkiisa iyo arrimaha u gaarka inaan sii dhexgelin intaasaan kaga baxaynaa hal su-aalun baanu sii raacsanaa intaa kadibna commentigaan idinla wadaaganaa idinkuna videogan waxa aad ku aragteen iyo waxa aad kaga soo filcinaysaan commentiga nagula wadaaga midda labaad ee kala like-ta share-ta iyo commentiga intaba waa idinka baahannahay si ay Soomaali badan u soo gaadho dhaqankan subscribe tano noo saara asxaabay Soomaali badan idinku bana gaarsiin kara aad baan u mahadsantihiin nala arka waxaa waay mataqaana walaalkay oo dadku waxa ay ka sheegayaan adiga shaqadaada maaha si fiican dadku bini aadan waay hadda masaajid gasho waxa laga sheegaa haddaad aniga camal tahay waxbaa laga sheegaa haddaa qof kale tahay waxbaa laga sheegaa because bini aadan waxaa waaye waxa aad samayso kuma qancayaan sida aad u nooshahay dad badan baa kaaga soo horjeedsanaya dadka oo badanka kaa soo horjeedsanayaana waxaa waaye dadka oo noloshooda meel u saameyn kari waayo soo maanta dhan inaa meel soo fadhiisto kuma daali karo oo maanta dhan kuma fikiri karo ma dhihi karo qofkaanita muxuu saas yiri sababta waxaa waaye haddaana rabin in layga hadlo number social media waa iska dhaafaa because sababta oo aad caan u noqonayso eed u rabto inaad caan noqoto dadku ku bartaan waxaa waaye in lagu hadal hayo damor lagu hadal hayo damor ay adiga faa'iido ku tahay so ani basically dadku waxay iga sheegayaan ma dhibto because ma kala jecli shaqadeeda maaha shaqadeeda halka arta fikirka inta hore kuma raacsan laakiin kan waa ku raacsanahay waxaan ku raacsanahay qofka caanka ah waxuna waa laga sheegi karayaa wax fiicanna waa laga sheegi karayaa de wax kalena waa laga sheegi karayaa arrin kale imika tiri waan ku raacsanahay waayo qofka caanka ah hadii waxan uu kugu oo lagu sameeyo de waxa haboon inuu aamuso waxa la dhahaa awoodda adduunka ugu weynaa waa aamusnida waa sax taas laakiin se hal mid baan ka soo horjeedaa dadka shacabka Soomaaliyeed meel kasta joogan waxa please qof wax xun gudbinaya ina gaarsiisaan oo hadal haysaan maba ah waayo mar kasto aad hadal haysaan markastuu xisii faafay waa markastuu xisii faafay maanta inay baabajay u waraysto waxa keenay waxa weeyaan idinka weeyaan waayo hadii agtina aydan maaragtay aanay saameyn ku lahayn waxaan may samayseen caana may noqoteen website-ka si ku ekaan laakiin idinka wax ka dhigay idinkaana heerka gaarsiiyay umada kalena idinka heerka gaarsiiyay marka anagu waxaan idinka codsanaynaa video-gan waxaan u duubaynaa waa in dhaqankan ay gudbinayso inaan umada ka hor istaagno oo dumarka raba inay sideeda noqdaan aan ku odhano qaabkan waa qaab khaldan marka adigay kugu xidhan tahay inuu qofka gaadho video-gaasu oo ay halkaa kaga joogto adigana ajar bay ku tahay muuqaalkiina intaasaan kaga baxaynaa commentiyadiina waan idinla wadaagi doonaa screen-kan idin soo saari doonaa insha Allah commentiyadana waa idinla wadaagina screen-ka idin soo saari doonaa tayo official soo dhawaada mid labaad ee kala asxaabta qaaliga meel kasta joogtaan waxa xunna faafisaan iska ilaaliya waxa wanaaga ah ina faafisaan isku daya waqti kasta oo xumaanto ay easy noqoto maaragtay hooyooyin bay nahay waalidiin bay nahay laga yaabaa kuwa aan ahayn inay berri toolo noqon doonaan dhaqankeena Soomaaliyeed oo waxyaalaha diintu ku salaysan yahay inay sharafteena ilaashano karaamadeena ilaashano gabadh cawradeedu waxa weeyaan inaga ceebteena waa sharafteena muxuu ahaayay ma aha marnaba gabadh cawradeeda inaan dabad keeno iyo waxyaalo la midaba markaas ka ilaalinayda oran lahaa ubadkeen dhalaana marka waxa daawadaan bari sidoo inoo kalun bay noqonayaan waxa aynu soo bandhignay aan keenay uun bay iyaguna raacayaan kuwin qaawin dad badan oo ku raacsan baa jira khasbiyan oo waliba video-gan dartii ku raaco waa Fariid waa gabadhaad arkaysaan waxay tahay aad ogtihiin ayaa la leeyahay waa Fariid waa gabadh fiican ta gabadh fiicnimeed xaqi taala gabadhaas turaba gabadh waxay fiican tahay markay jilbaabka xidhan tahay nin kasta oo meel kastu joogo ma jecla gabadh qaawan gabadh xaragoota xarakada wax loo baahan yahay laakiin wax jirkeeda muujinaya oo banaan cad keenaya marnaba lagama yaabo gabadhaada habeen la seexatay lagama yaabo ninka ragga inuu muxuu ahaayay de guursadaba wuxuu oranayaa sidii aniga ila seexatay qof kalena ula seexanaysa
taasuu aaminaya qof kasta marka gabadha sharaf waxay ku leedahay xijaabka jalaabiibka wixii kale quruxdeeda ee jirkeeda kusoo baxay caadi aan ahayn maaragtay damaro jirkeeda oo dhan ku dhagan aad iyo aad baan idin leeyahay aad baan idin salaameynaa xamse waxaad ku sii leedahay like-ta share-ta commentiga subscribe-ka intaba idinkaa idinka fadhinaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bye 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 bye